ha ku lumin waqtigaaga tirinta dhibaatadaada iyasan kuu muuqanoo keliyata waxyaabaha aanad haysan xasuuso oo ku mahadceli waxyaabaha alla ku siiyey ha murugoon murugtu waxay ku soo xasuusinaysaa wixii tegay waxayna kaa cabsi gelinaysaa wax soo socda ha murugoon habeenka soo mugdi ah waxa ka dambeeya maalin iftiin badan culayskana waxa ka dambeeya waa fudayd ha murugoon waxaad leedahay laba indhood oo aad wax ku aragtid laba dhugood aad wax ku maqashid laba lugood aad ku socotid laba gacmood aad wax ku qabatid meel aad seexatid maskax aad ku fikirtid iyo qalbi aad wax ku dareentid allana waxa uu leeyahay haddii aad tirisaan nimcada alle ma koobi kartaan ha murugoon murugtu waa waqti lumis waxba ma bedeli karto waxay wereerinaysaa maskaxda waxayna kaa xadaysaa farxadda ha murugoon xanuunka waad ka caafimaadi dhibaatadu way dhammaanaysaa dunuubta waa la dhaafayaa deyntana waa la bixinayaa qofka maqanna waa uu imanayaa qaladkana waa la saxayaa ha murugoon nolosha wixii lagugu talagalay waad helaysaa xitaa haddii ay laba buurood dhexdooda ku jiraan waxaan lagugu talagelinna ma helaysid xitaa haddii ay ku jiraan labadaada dibnood dhexdooda ha ka murugoon in alle ducadaada kuwa aqbali waayey xaqiiqda alla ayaa garanaya wixii khayrkuugu jiro qorshihiisa ayaana ugu wanaagsan ha ka murugoon haddii aanad joogin halkii aad rabtay alla ayaa garanaya meeshii kuu roon samir kuna qanacsanow meesha aad joogto ha murugoon wixii alla kuu dooray ayaa ka wanaagsan waxa aad dooratay ha murugoon sababtoo ah murugtu waxay keenaysaa cunto xumo hurda la'aan madax xanuun badan iyo miisaanka jidhka oo luma islamarkaana farxad iyo firfircoonida weydii ha murugoon xilligan oo aad neefsatay adigoo caafimaad qaba qof ayaa qaatay neeftiisa ugu dambaysay oo adduunka ka tegay ha murugoon marka guuldaro iyo afgaaraan ka baratay wixii qof kasta oo guulaystay uu soo maray guuldarooyin badan ha ka murugoon wax badan oo aanad awood lahayn inaad xakamayso alle ma saarin garabbaaga culays aanaad xamili karin ka murugoon wixii tegay wax soo socda ayaa ka qurux badan ha ku mashquulin maskaxdaada albaabkaa soo xidhmay ee ishaada waa inay qabataa albaabka kale ee furan ha ka murugoon haddii qofkii aad adduunka ugu jeclayd kuu caddeeyo inaanad agtiisa wax qiimaah ku lahayn sababtoo ah waxa uu kuu baneeyey waddada si aad u aragto qof isaga ka wanaagsan oo ka muhiimsan ha ka murugoon kuwa hantidooda kuugu faanaya waayo warma aysid inay beritaba adiga shaqaale ku noqon doonaan intan ayaynu ku eegi doonaa muuqaalkeena maanta dad muuqaalkani ku xiso geliyay marnaba hanaga ilaaw inaad muuqaalka noo like garayso noona sheer garayso oo walaalkii maxamed yaasiin oo leh tabinka mid lamid ah kugu mid doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh